qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaabo madax dhaqameed aqoon-yahan iyo waliba dadka ganacsada beenyada iyo waliba dadka gacanta ku haya xabkaha iyo faleenka beenyada ee gobolka Sanaagu caanka ku yahay ayaa waxa dadkaasi ay si kulul u cambaareen haweenada lagu magacaabo Angelina Ricardo oo ah gabar Talyaani oo haysta dhalashada Mareykanka taasoo ay sheegeen in caqabad ay ku tahay horumarka kheyraadka gobolka Sanaagu gaar ahaan beenyada waxaana xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adda horumarinta wakaalada xabkaha iyo faleenka ugu baaqeen inay gabadhaas ay tallaabo cad ay ka qaadaan isla markaana ay gabihaanba ka saaraan gobolada Soomaaliland waxaana xubnahaas oo halkaasi ka hadlay hadaladoodii kamid ah sida tan shirkeenana wuxuu daaran yahay baaqa aynu ka jeedinayno gabadha ay u jeedinayno xukuumadda oo ah gabadha in dalka laga masaafuriyo inaanay beeyadeena iman karin kullay dadkii beeyada lahayn halkan ay ku dhan yihiin xukuumadda waxaan leenahay hana laga joojiyo dadka dhibka nagu wada ee xabkahayaga iyo dhirtaydu soo dhigtay dadkaygu wax kale kuma baxsan abaarihii waxay ku baxsadeen wax weeye xabkaha iyo faleenka dawladda Soomaaliland waxaan leenahay iyo cidda dabada ka wadaba in laga joojiyo baaqa u direena waxaan ogeysiinaynaa wakaalada laftigeeda la sheegay in la sameeyay wakaalada waa taageersanahay waa sax laakiin waxaan rabnaa wixii xun ee aanu ka ashkatoono inay qabato haday qaban weydo iyada laftigeeda ma ictiraafsan wassalaamu calaykum wixii wadada ka riixayana waxaan leenahay war wayna ka dhaxayaan xoogay waxba yeeynaa waxaan waxba ku falinay waynu ilaashanaynaa wax walba idinka yeeli mayno waxaan leenahay naagtaas iyo waxa ma ogolinaano dawladii ay ka dhalatay ama Mareykan ama Talyaani ahaatee de ha qabsadaan hana maqlaan hana arkaan waxay warka ku bixisa cilmi baaris ilaahay baa cilmi baarigeedkan wax binaadana ma cilmi baara gabadha inaan mas'uul ka ahayn nabadgelyadeeda haddii ay u soo baxdo gobol Sanaag baanu maamulka u sheegayna oo hay'adaha nabadgelyada u sheegayna dad leeyahay oo hanti gaar ah wax loo sameeyay maaha wax Mareykan laga leeyahay maaha wax Talabiib laga leeyahay maaha oo aanu moodeynay cid wax u qabanaysa dalka iyo dadka aanu moodeynay ayaanu halka ka cambaaraynayna waxaanu xukuumadda gobolka iyo tagguudba gaarsiinayna gabadhaas inay khalkhalgelin ka wado hantida iyo maalka ay ummaddu ku nooshahay annaguna aan ummadda wakiil uga nahay iyada caalamku oo dhammi wada og yahay yaan la naga xumaynin yaan sumcad xumo la naga beerin dadka sida u shaqeynaya ee beeyadii iyo sida iyaga danta gaar ah lahowna ilmaada reeyalo waan idin yeedhinaa inoo kalayo meesha ka baxday wixii ka abaa loo dhaxlayo jiilba jiil buu bedelay maantana waa ugu wanaagsan tahay waa cudur wax laga sheegay waxba la gurin maayo wax alla waxay qabtaana ma jirto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxay la soo noqotay maanta iyada lafteedii inay leedahay waxaan beeyadu way xun tahay waxaan waana talaalayna waxaan leenahay cidii arrinta dabada ka riixaysa waxaan leenahay arrinta runtii laga waantoobo gabadhaana waxaan leenahay beeyada iyadu waxa ma qabto cidaan wax ka weydiinaynaana ma jirto mana tagaysid wada oo meeshii wax la doonayaa in la baabi'iyo oo dhibaatadaas marka runtii annagu intaas waxaan leenahay dawladdu ha joojiso wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga immigrationku ha joojin iyayna keenin cali al daahir telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo.